soo gaadhay martiqaad uga yimid xukuumadda DDS kaasi oo ujeedkiisu ahaa xal u helidda sicir bararka ba'an ee saameeyay nolosha asaasiga ah ee bulshada deegaanka Soomaalida. Sida la wada socotaan deegaanka Soomaalida waxaa halakeeyay sicir barar cidhiidhi geliyay nolosha qaybaheeda kala duwan ee bulshada. Xukuumadda DDS oo markii hore ku fashilantay arrimaha maamulka siyaasadda ayaa haddana ku fashilantay maareynta sicir bararka sida iyadu afkeeda ka sheegatay. kulankan maanta loogu yeeray xisbiyada siyaasadda iyo odayaasha dhaqanka ayaa ahaa mid ay xukuumaddu ku doonaysay inay ku marin habaabiso aragtida bulshada ee wax lagaga qabanayo sicir bararka. xisbiyada siyaasadda ee ONLF iyo FEB oo fahansanaa afduubka aragtida xorta ah ee shirka ayaa madasha ka soo baxay kadib markii loo diiday warbaahintoodii. sidaa daraaddeed waxaan bulshada deegaanka la socodsiinaynaa kow in ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalidu ku fashilantay xal u helidda arrimaha sicir bararka waxbana ayna ka qaban karin. waxaan bulshada u cadaynaynaa in shirarka lagaga hadlayo arrimaha sicir bararka ee ay qabanayso xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalidu ay yihiin kuwo lagu maaweelinayo bulshada. sababta saxaafadda xisbiyada loogu diidayna ay tahay in laga qariyo doodaha ay xisbiyadu qabaan iyo su'aalaha ay weydiinayaan xukuumadda ee bulshada u soo gudbaya. xisbiyada ONLF iyo FEB waxay aaminsan yihiin fashilka xukuumadda ee sicir bararka inay iyadu qayb ka tahay. sidaa daraaddeedna aynan xal u helidda sicir bararka qayb ka noqon karin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillaahi raxmaani raxiim. shirkan saakana lagu yeeray runtii wuxuu ahaa shir la rabo in lagu dhalan rogo ama lagu maqaar saaro qaabkii xal loogu heli lahaa wax ka qabashada sicir bararka. waan hadalay hadalkanagii aan hadalay labadii wiig ee aad ugu dambeysay aan hadlaynay in bulshada ku baraarujinaynay iyo xukuumaddaba in loo istaago sidii wax looga qaban lahaa sicir bararka. wuxuu dhalay in shirna loogu yeero kadibna la yiraahdo shirkii qol mugdi ah soo gala oo madow iyadoo la doonayo doodaha iyo aragtida aan shirka ka dhiibanayno inayna banaanka u soo bixin ee halka lagu hayo. wuxuu noo sheegay wasiirka warfaafintu inaan la doonaynin media kala hadla oo aragti kala bedelan bulshada u baahiya. hal TV-gaas inuu nagu filan yahay saxaafadda xisbiyadana aan loo baahnayn. arrintaasi waxay idin tusaysaa aragtidii cidhiidhiyoon ee lagula dagaalamayo bulshadu inay hesho aragtida iyo siyaasadaha iyo waxa socda iyo doodaha xisbiyadu ay ka geysanayaan sidii xal loogu heli lahaa sicir barar. dhibaatada deegaanka haysata oo ka bilaabatay maamul xumo oo haddana ku soo fadhiisatay hoygeeduna uu noqday sicir barar iyo in la jaangeyn waayo maciishadii asaasiga ahayd ee bulshadu waxaa sabab u ah xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida. ha jiraan culeysyo caalami ah oo caalamka aan la qabna ha jiraan laakiin waxyaabaha asaasi ah jiro inagu aan jaan goosan karno. marka laga soo qaado sixirka suuqa la tago xoolaha lagu iibsanayo lugta neefka ariga 850 riyaal baa laga siinayaa Jigjiga. Arsabana waxaa laga siinayaa 600 riyaal. kiilada hilib geela 500 riyaal baa laga siinayaa Jigjiga. 300 riyaal baana Arsaba lagu cunayaa. waxaad ogtihiin hoyga dabiiciga ee xoolaha nool inuu deegaankeenu yahay. waxaad garan kartaan markaa cid jaan goynaysa ama ka daba tagaysa ama wax ka qabanaysa ama dan kale midna inay jirin. xabadda yar ee biyaha 600 mililitir yaa waxay maanta maraysaa magaalada Jigjiga ka maraysaa 30 riyaal. koobka shaahuna 50 riyaal buu ka marayaa. ma jirto markaa maciishadii gudahan ku filan laanahay wax dibadda laga keenay iska daa. arrinta shidaalka dhibaatada shidaalka hadda waxayna haysataa waa laba dhibaato weey. waa cuntadii iyo shidaalkii weey. shidaalku waxay ka bilaabatay xukuumadda ka bilaabatay. xukuumaddu markii dooda ah inaan shidaal lahaynin iyo cidhiidhi shidaalku u yimid waxa la dacweeyay saamigii Soomaalidu ay ka heli jirtay federaalka oo la yiri shidaal dheer ah nagu jira hana laga jaro. iyadoo la heli karo xuduudaha in la kontrolo ciidamada intii lagu wareejiyo dadku xuduuduhu ciidamada inay xadka shidaalka baxayaan lagu kontrolo. markii inta la sameeyay ba haddana la soo dhaadhiciyay waxbaan ka qabanaynaa. kaalmihii shaqaynayay baa la xiray oo lagu sii daray oo la yiri inay shaqaynay. marka cidhiidhiga shidaalku mid inagu aan keenay oo xukuumaddu ay sabab u tahay oo inaga bilowday way inaguna soo dhamaanaya.
beeca lagu darahayo Ethiopian la qabnaa waxa la saarahayo laakiin waxay ahayd wixii la saarahayay baan la helayninba laguma gadayo deegaanka Soomaalidu ma yaalo nin walba qiimuhu doono wax ku gadahaya cid daba galeysay cid maareynaysan ma jirto marka waxaan leenahay fashilka yimid ee maanta yaala waxa weeye iyadoo siyaasadii lagu fashilnaa yaa haddana arrimihii asaasiga ah ee bulshada iyo nolosha maareyntoodii yaa lagu fashilmay marka dadka noocaas u dhaqmahaya ku fashilmay inay jaangooyaan siyaasadoodii iyo noloshoodii jaangooyaan xalka qayb kama noqon karaan waaqica rasmiga ah yaala waa kaawi doodahanaga waxa la noo xanibayona waa arintaas waad maasantiin bismillaah waa sida waafayaan ku sheegay run ahaantii waa laba dhibaato waxayna haystaa waa shidaalka iyo maciishada waxa kicinaya waa dollarka la leeyahay dollarkana waxa kicinaya lacagta lagu farqayo magaalo xuduudeedka wajaale ee dollarkiiba cirka geynaysa waxa farqaya ma aha marka ganacsato ma aha shacab ma aha xisab siyaasadeed ma waa xukuumadda marka hadii ayna deynayna ha yarayso lacagtan ay dollarku u bedelaysa qurbaha ku shubanayso ee ay wadanka ka bixinayso lacagtaas ay dhibtay dollar soo ogaanay xogta wajaale waan tagnay waana isla wada soconaa midda kale waa maciishadii la jaangoynayay oo ayna xukuumaddu awood u lahayn inay fuel gauge-ka shidaalka uu 36 bir qoro wiilka boorsada la taaganna uu ka qaado 40 riyaal ka garab taaganna waa askari yahay ayna war ka dhindhihi karin ma garan karo waxay awoodi karto wiilka bajaaj ka soo qaada stage to stage aan contract ahayna intuu talada siid ka soo baxo minaariyaga tagay inuu maalina 50 dhaho maalina 20 dhaho shalayna toddobaadkii hore oo 5 riyaal ah ani waa dhaliisha iyo fashilka xukuumadda ayna awoodi karinaynan ruux wardabka kala xadhiga karin midda kale shay kasta bariiska sonkorta burka wax kasta uu laba jibaarmay 1 week hal week gudihi ma dhici karta meel caalamka sixir bararka uu noocaas u laba jibaarmi karo midda kale ku daray waxay tahay distance-ga kilometer baa lagu jaangooyaa oo shidaalka waa la yaqaan dawladdu way jaangooy kartaa marka dawladdu haddii ayna isha ka dhowranaynin oo ayna waxba amri karin waan fashilanay ma qaban karo ku soo wareejisay cidii ay qusaysay saamilada siyaasadda deegaanka ku soo wareejisay talada iyo arrinta wixiga fashilkeedana sida ay u qoratay xil wareejin ha ku darto laakiin intii ay waan fashilnay dhahdo afkayna dara kursiga noo sii fadhinin marka intaasaan ku soo darayaan assalaamu calaykum bismillaah waa laga soo hadlay dhammaan sixir bararka iyo maxaa la yidhahdaa labada xisbi maxaa la muftiyeedkii iyo saxaafadeedkii iyo ku koobnay aragtida labada xisbi ay ka qaban arrintan waxaan ma wax horta hal maalin sixir bararkani waxa la habeenay noo yimidayba waxaan aaminsanahay fashilkan si guud waxaan dhalaay taabanaya maamulkii taabanaya maciishadii hadda yimiday inuu wax 4 sano soo socdayba 4 sano ugu dambeysay wax soo socday inuu ahaa marka xukuumaddu waxa weeyaan markii hore waxay ku fashilantay sharciga laftirkiisii way hirgeliso waxa weeyaan waraaq baa soo baxaysa xafiis baa soo saaraya maba dhaqan galaysan marka amnigii bay ku fashilmeen